الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا القصود بهذا البرنامج كان حروا إلى كان مخصوصا بينه إنه نسوق على بوجي دريل بشو ورانتي نبى نسوقيني بوجان دريل بشو كان لا يا علم نفسي قريبي سكر الدول إن فهم بحلقة هلو dadka Soomaaliyeed runtii waxaan dareemay inay u baahan yihiin faham buuxa ka helaan dhanka cilmi nafsiga ama badqabka maanka. runtii aniga muddo aad u fara badan oo ilaa 20 sano ayaan ka shaqaynayay hay'adaha caafimaadka dhimirka anigoo ah tarjumaan saa daraadeed ayaan waxaan go'aansaday waxaan jeclaa inaan akhristo buug Soomaaliyeed oo ka hadlayo buug Soomaali ah ama buug psychology ah inaan maaragtay waxyaabo badan macluumaad fara badan waan jeclaa inaan ogaado ayaan waxaan ku daabacay buuggaani haddii la yidhaahdo waxaan kusoo ururiyay fikrado shakhsiyadeed madooyinkaan ka shaqaynayay madooyinkaan ka shaqeynayay xarumahaasi dhimirka waxaa kaloo aan maaragtay kusoo qaadanayaa fahamka dhinaca islaamka iyo qaybihiisa kala duwan sida uga hadlayo islaamka maaragtay cilmi nafsiga sida sheekhyadii waaweynaa ee alkindi iyo alghazali iyo la mid ah dhanka islaamka xagga uu ka abaaro caafimaadka maanka aad iyo aad baana u mahadsantihiin runtii waxaan ka codsanayaa inaad buuggaan akhrisaan isla markaasna aad maaragtay in badan inta ku xiranna aad sidoo kale aad ka caawisaan haddii ay jiraan dad u baahan in kalooyin laga siiyo dhanka badqabka maanka runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah haddii aan nahay dad Soomaaliyeed waxaan ugu soo badanaya xanuunada dhimirka waxaan ugu soo badanaya trauma iyo dhibaatooyin fara badan oo la xiriira dhanka dabeecadaha oo kale marka waxay xiriir leeyihiin marka qaarkood inay u baahan yihiin sixitaan inkastoo bishaaradu waxay tahay in qof walba oo bini aadan oo adduunka intuu nool yahay dhibaatooyin la soo gudboonadaan inuu ka maaragtay dabaalan karo ama uu awood u leeyahay inuu ka kaco bal meeshii hore meel ka fiican uu sii gaaro saa daraadeed waxaan isleeyahay aad bay muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed ka helaan faham qaabka loola tacaalo galbeedka iyagoo soo xiganaya ama iyagoo isticmaalaya techniques ama qaab ay maaragtay daraasado u sameeyeen oo ay ku najexeen runtii waa cilmi aad iyo aad loogu faa'iideysan karo runtii xagga diintana waa ka fiirinaa oo qaab macnaha islaamka sida uu maaragtay u qeexay sida uu la tacaalo amraad quluubka yiraahdo ama qalbiga iyo islaamka ka abaara marka taa naftirkeeda aad baan kutubtan baan u talagalay inaan la hadlo codobka ugu dambeeyana waxaan ku siin doonaa bismillaahi kariim ilooyin iyo waxyaabo fara badan oo dadkii aniga aan la soconay wax badan ka bedel noloshooda wax badan u faa'iiday marka ma ahan macnaheeda inaad adiga aad jiran tahay ama aad qabto dhibaatooyinka aan ka hadlayno halkan balse waxaa laga yaabaa in dadka kugu xeeran ama dad la dhibaatoonaya arrimahaasi ay jiraan adiga waa cilmi guud oo aan daraasado laga soo xiganayo kitaabo fara badan oo aniga akhriyey